عاقدي hore in la iska daayo caagadaha hadda marshadu soo saartay oo casriga ah oo nadaafadooda la hubo in lagu shubto la isticmaalo in nadaafada la ilaaliyo caanaha in wax walba in laga taxadaro inay fiican tahay laftigeeda haddaan tago qofka ugu horeeyo geela loogu yeero ama ugu badiyo lisitaankiisa waanaga ashilkaaga riday oo gibigaaga riday anoo lisayabay oo farbarad bay ahayd. Assalaamu calaykum daawada kulanti wanaagsan aniga waxaan ahay Yunis Qays halkaad iga daawanaysaan waa Som News TV maanta waxaan barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa qaabka loo isticmaalo caanaha geela ama caagadaha lagu isticmaalo caanaha geela sideen wada ogsoonahay waagi hore caagaduhu waxay ahaayeen ama caagadaha lagu shubto caanaha geela waxay ahaayeen caagada meelaha laga soo ururiyay oo maamooyinka caanaha iibiya loo geyn jiray kadibna caanay ku shubi jireen qofku iska qaadan jiray iyadoo la garanayn caagadan qofka ka cabay caanaha inuu xanuun qabay inuu caafimaad qabay haddana waa la iska qaadan jiray waa la iska cabi jiray balse hadda waxa jirta mid taa ka duwan oo ah in caagada moolgaraysan ay warshado soo saaraan oo caanaha geel lagu shubo warbixinteen ayaan diiradda ku saari doonaa ugu horeen ku soo dhow Som News TV adoo magaca ku bilaabaya ugu dhawahay saaxiib maxamed cilmi xasan maxamed waxaan wax ka weydiinaynaa caanaha geela caanuhu waagi hore islaamuhu waxay sameyn jireen ama dadka caanaha iibiya caagadaha meelahaas ka soo ururin jireen dadkana caanaha loogu shuban jiray way qaadan jireen maanta iyo waagi hore maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin baa la dhihi karaa hadda waa la ilbaxay wax kasta waxa laga dhigaa casri caanaha waagi hore waxa lagu shuban jiray caagada magaranaysa in dabiya laga cabay ama kisbaayar oo meelaha laga soo qaado lagu shuban jiray oo laga yaabo caafimaad ahaan ama nadaafad ahaan inay si fiicnaan hadda laakiin warshad baa samaysa warshada markay soo saardo ayagoo nadiif ah caani lagu shubayaa waa la helaa iyagoo moorgaraysan baa lagu iibsanayaa haddaysan moorgaraysnayn iibsan maysid marka farqi weyn baa u dhexeeya caanihi markii hore iyo markaan boqolkiiba boqol waxa nadaafad fiican ku hadda marka la yiraahdo caafimaad ahaan iyada si leedahay dhinaca caafimaadka way ka horumarsan yihiin warta caanihi waa isla caanihi oo isla mid waa caano geelo de waa xooli baa laga keenay waa isla mid ka caanihi laakiin waxa laga yaabaa kuwaana ka horumarsan waxa laga yaabaa caagadaha expired-ka lagu shubayo inaysan nadiif ahayn ama in wax kale ka soo noqdaan ba laga yaabaa mooqta hadda laakiin caagad nadiif ah oo warshada soo saarday baa lagu shubayaa boqolkiiba boqol marka kuwa kan baa nadiifad baa fiican marka caagadahan ma si gaar ah loo iibiyaa marka caanaha lagu shubaya mise waa free weeyaan si gaar ah loo iibiyaa warshad baa samaysa oo soo saarday iyagoo gaar ah la iibiyaa marka iyagoo warshada samaysa marka la soo saaray baa la iibsan karaa iyaguna meel gaar yaalaan oo laga iibsadaa qaadanaysa geel ay u geenaysaa caana kaga soo shubanaysaa iyagoo moolgaraysan baa la keenayaa bulshada loo keenaya maxaad ugu baaqi lahayd bulshada ku daawanaysa oo Som News TV ka daawanaysa waxaan ugu baaqi lahaa in nadaafada la ilaaliyo caanaha in wax walba in laga taxadaro inay fiican tahay wax walbana hadda horumar baa loo sameeyay waa la horumar casri baa la gaaray caagadi hore in la iska daayo caagadaha hadda marshadu soo saartay oo casriga ah oo nadaafadooda la hubo in lagu shubto la isticmaalo maxamed waan kula kaftay weliga geel ma lista geel jiraan baa aanu haddeer laftigeeda haddaan tago qofka ugu horeeyo geela loogu yeero ama ugu badiyo lisitaankiisa waanaga hashi kuugu la yaabka badnayd ama isdhihi kartid hashaasaa dhibaato kula kulmay qisada aad kala kulantay minoo sheegi kartaa hashi ila yaalka inta geel lisaysaa tan geel lisay hashi ilkaaga riday oo gibigaaga riday anoo lisayabay oo farbarad bay ahayd naga qabanayna law igu dhufatay marka aan yar baan isma lahayn waxba ilkaaga wax gaari karaan marna isma lahayn saasaan u eegay mise kugu yaalaan ma garan marka waxay la noqotay in horta qof dhalinyaro yahay cusub yahayna waxyaabo badan baa la kulmay waxay la noqotay inay waa cusub iyo bariyo kale
وكا حشا سمرك الكا كيردي حش واحد صوت هذا عسان بالورتي ولي واس واحد صوت هذا حشا مرنوش هاي مش فرعي ذو عبك نولي ما فرعي وحبا كنول لكن ما waa hore ahay وار adoo فرعي marka ilkii dib bad kugu soo baxan maadaama waagi adigu waa yadamee baan waxaan ka dhigtay sideedii ma sha Allah waagaas saas laftigeeda looma aqoon oo hadda laakiin adika waxa tagaysaa waxa laga yaabaa kuwa qurux badan inaa isla maalintii gashay war maxamed aad buu mahadsan tahay barnaamijyo kale oo ku saabsan arrimaha baadiyaha baan ka wareysan doonaa maadaama tahay nin geel jira laakiin barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsanaa caanaha guud ahaan waxaan halkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka koobnaa aan kaga hadlaynay caanaha geela oo loo isticmaali jiray waagi hore caagadaha noocan oo meelaha laga soo ururiyo ayaa lagu shubi jiray caanaha laakiin maanta waxaa lagu shubaa caagado la isku hubo oo moolgaraysan oo caafimaad ahaan u fiican laakiin marka hore caagada qofkii wax ka cabay lama garinin qofku waa loo qaadi jiray waa loo geyn jiray waa loogu shubi jiray hadda laakiin caagado la hubo oo warshada soo saartay ayaa la isticmaalaa marka ha moogaanin caagadahan inaad isticmaashid oo caanaha geela aad ku isticmaashid barnaamijkeena waxaa ku saabsanaa caanihii waagi hore la iibsan jiray caagadaha lagu iibsan jiray iyo kuwa maanta kala duwanaanshaha u dhaxeeya barnaamijku waxaa idin soo jeedinayay anoo ah Yunis Qays waxaana igala qayb qaadanayay saaxiibkay Maxamed oo ah nin geel jira oo hitaa nooga sheekiyay inay mar hal ilka ka riday ama ilka tuurtay insha Allah waaye badan geelaan uu nooga sheekeyn doona halka barnaamijka la socotaan waa Som News TV. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.